الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyntii dhammaantiin waa mahadsantihiin inaad ugu soo sharafteen ka soo qayb gasheen xafladan. aad baan idinku mahadinaynaa. hadal badan oo aan raba inaan sheego aad ayaa loo sheegay, marka waqtigeena waa idinku dheeraaday, marka waxaan isku dayi doonaa inaan hadal badan sheegin maanta. waxaan ka bilaabayaa hadalka marka niyadiina aan dhageystay muddo dheerna aan ku dhex jirno dadka Soomaaliyeed oo muddo dheer lagu hungoobay hoggaan u soo istaagay madaxan idin noqonay yiraahdo. waxaan rabaa inaan meeshan ka sheego dhowr qodob oo muhiim ah. qodobka ugu horeeya waxaan ballan qaadaa inaan horta been idin sheegin marka ugu horeysa. waxaan ballan qaadayaa inaan idin khiyaanin. waxaan ballan qaadayaa inaan xoolihiina la cunin intaan aniga madaxahay. waxaan ballan qaadayaa inaan idin kala eexan. qodobadaas waxay ila tahay aan idin sheego idin ballan qaada waa waxyaabaha dawladda Soomaaliya ka sameysay weys. dad madaxa aan qaanuun u hoggaansameyn qaanuunka dadka samee cadaaladdu qaanuunka la filiyo ku timaada oo sharci iyo qaanuun rabin. dad madaxa oo xoolaha ummaddu leedahay say rabaan u isticmaalaya. maantana aan qaadanay koobkii ugu weynaa ee musuqmaasuqa caalamka inaan qaadanay annaka ummad faqiira oo ruux kastaba gaajo u dhimanayo inaan 35 milyan oo dollar ay nagu maqan tahay musuqmaasuqa. wax aad iyo aad looga damqada inay tahay. dadkayna waxaa loo bartay in been loo sheego. waxaa loo bartay in la khiyaano. waxaa loo sheegay in villa Soomaaliya gudaheeda ay noqoto goob xarun beeled inay noqoto oo guriga villa Soomaaliya loo bixishay aysan noqonin guriga Soomaali wada laheed oo shirkad ay ku wada aysan noqonin ayaa loo bartay. anaga waxaan ballan qaadayaa dhaqankaas bedelo, dhaqankaas qaloocan ee qaabka daran. dhaqankaas qaloocan oo dawladda lagu noqonayn oo dawladdeena dumiyay oo dawlad lagu sameeyay 22 sano igama sugaysaan haddii dadka qaar ay u fikirayaan dawladihii hore qaabkay ahaayeen iyo qaabkii dawladda loo yaqiinay ayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Baadiyo haddii laga dhigto qaabkaas dhacaysa waxa waaye Ilaahay ha cawdi bilaystaan ma dhici doonto taas. waxaan sheegayaa dhowr qodobka ugu horeeya oo ka hadlaya waxa waaye maxaa dhibka ugu weynayna haysta oo dawladnimadayna ay meel gaar leedahay maxay tahay. tafaasiisha dheerka magaalada waxaan ka tooganayaa wadnaha meesha ugu daran maxay tahay. meesha ugu daran waxaan u arkaa inay tahay dawladdii aan ka dhaxalnay isticmaalka oo naloo dhiibay 60kii waxay ahayd dawlad col ah shacbigeeda col ah. ma aha dadka madaxda ah dadka col ahayn ma qaabka dawladda loo sameeyaa qaab cadaawad ku dhisanay ahayd. maxaa ila waxay ku dhisnay dawladdaas dawlad waxay ahayd cilmaani ah oo dhaqan aan ummadaynu lahayn oo ummado kale leeyihiin iyo qawaaniin ummadaynu aan lahayn oo ummado kale leeyihiin oo dadkaynu aysan aqoonin dawlad dhaqan geliyaysa ayay ahayd. thaqaafo ummadaynu aan lahayn dhaqan geliyayeen qaab ku dayasho reer galbeednimo ah oo dhaqankayna diintiina laga tagay dawlad dhaqan gelisay qaabka u sameysay dawladda noocaased. waxay ka soo horjeeday dawladdaas ay la dagaalantay ay ku magacaawdeen la dagaalamayso dhaqanka Soomaalida oo qabiilka ah. qabyaaladuna waa dulmiga ku jirta in qabyaalad la sameeyo waxay ku jirtaa waxyaabaha qaanuunka lagu xalli karo waa dulmi qabyaaladu markii xumaan lagu sameeyo. laakiin in qabiil la inkiro oo dadka mujtamaca jiritaankiisa la yiraahdo magacba lama sheegi karo oo ugu dambaystiina qabiil lagu qaato xukunka taasoo keenta in qabiil lagu mucaarado xukunka oo qabiil iyo qabiil la isku dilo ilaa ugu dambaysi dawladnimada la diriray waxay ahayd qabiil laga xaraajiyay. maxaa jar wixii loo sinaay dadku ay wada lahaayeen ayaa koox magac qabiil ku qaateen koox kalena way ka xanaaqday. marka dawladdu ayaa waxay marka col ahayd waxay suuro geliyay dawladdaas ay suuro geliyay inay dhaqankii Soomaaliyeed oo qabiilka ahaa waajir yahay wixii la kala leeyahay iyo waxa la isla leeyahay in la kala sooci waayo. waxa la isla leeyahay waa muwaadinimada. ruux kasta ee Soomaaliya marka dawlad la joogo dawladda qabiil maaha. dawladda dadku magacooda waxa la yiraahdaa reer bal ma ah magacooda waxa la muwaadiniin
أسمن حقوق ذا إيه واجباتك أو شغذا إيه شرفته إيه كرامة أمد الله ذهي روحنا كحجين أيات دولة اللي هذا مركز اللي هذا وحاك روجرا بيلا صوماليات أو دجاجنا له أو عائل له تبي عائل اللي هنا اللي هذا أو مدح له أو دقن له أو إن الله دجال ما ينهين لكن اللي هذا حدود الدولة ما ده مركز اللي هذا بس هو قلي كرتان حدود إنه حدود دقن إيه حدود بالشيء هذا مركز تيبا مركز الله يسقط قصي قبيل كبار سوق دبي أو سوق بالدولة ما دي دولة أنت حد قبل قبيل قبل أسأل كل هذا قارات سيبيرو هذا دعوي ما قاعدين قبيل دولة ما ده لو دعي قبيل كده أنت يمدو في الله صوماليا فلسط مركز ساعترت دولة وحي هاد كسو هرجي دقن كينا سو جيرين كأه أو أي هاد إن حدودي يماشي وكسنا يهلو قسمه دولة داس وحي هاد وحي كسو هرجي دي أو لكاري واي دين الإسلام كأيا لكسو هرجيست بعد وقتهن علماء ديني اللي قد لي محاش على هذا الإسلام كلوب بربرنا يا إن دت صومالي هم قرية قاضن أن هو قاضن طلبات عشان اللي قد لي وقتي أو مركز تاسو أي كان الدولة دين تهدع الله دين تعلق على الله وحي كان ما أنت حناق أي حناقين حركات الإسلام كهاد مغليسان أو ما أنت يقدم بيان ما كنت على يرضى هاد دجال كشرة أو ما قاعد دين تقول دجال مي عد مغليسان وحناق جاموروا أو معلم مال سوق جاري dadka xanaaqay maxaa diinta islaamka sida loogu galayaa dad muslimiin ah wadanahay xanaaqaasa marka wuxuu keenay xarakaadka islaamka ah oo qaar umir qabaan oo qaar ay xanaaqsan yihiin xanaaqoodu zaid noqday oo keenay isbedel Soomaali laga sameeyaa magac diintan la badbaadiyaa in laga maarmaanta sidaa darteed waxa la rabaa dawlad Soomaaliyeed oo heshiis la ah dadkeeda oo qabaa'ilkeeda heshiis la ah oo islaamkeeda heshiis la ah oo dawlad dadku leeyahay on dawladda reer galbeed laga leeyahay ana saxan dawladda Soomaaliyeed leeyahay oo siday rabaan ay u sameystaan oo dhaqankooda iyo diintooda ixtiraamada dawladda aan ka qaadan marka dawladdaas Soomaaliyeed qaybta labaad ee dumisa waxay ahayd dawladdaas waxay la culowda dariskeeda taariikhan wad ogtihiin Soomaaliya markii la qaybiyay oo laba kamid ah ay jamhuuriyad noqdeen odayaashii gobonnimadoonka Soomaaliyeed ahaa waxay u istaageen dadka Soomaaliyeed oo isticmaalka ku jira in la xoreeyo dadka isticmaalka ku jira waxay ahaayeen Djibouti waxay ahaayeen boqortooyadii Ethiopia oo dadkayna Soomaaliyeed xoog ku qabsatay waxay ahaayeen qaybtii isticmaalka ayadana ku jirta oo NFT la dhihi jiray waxay keeneen mashruuc la yiraahdo Soomaali weyn oo dadka Soomaaliyeed ee la dulmiyaa waa in dulmiga laga qaadaa dadka Soomaali midoobaan saxayna ku ahaayeen sidaas maxaa jira waa dadka Soomaali waa la dulmi jiray waa la adoonsan jiray بعد وقته دباتوين كلا صامرة عالم كوا اسبدل وين أو حكت عاي عالم ك يا صومالي جود هذا دولة دين وابر برطي اسبدل قبل خدع وحو كانت إن شنت الصومالية ما أنت وحاول أقول لي تجمهورية الصومالية قبل الذي إن شاء الله هالجميع إنه عنده إلا ولا سعلي جبوت الدولة بين نقطة مدح بنان وقتها نو آيني ودي بهوشي سيسا ما يصير